Odaygan waxaa lagu magacaabaa Warmooge. Waxa uu ku nool yahay gurigiisa keligii. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu suuqa u baxay si uu u soo adeegto. baryahan suuqba baan aadinay. alaabtii baa iga dhamaatay, bal maanta ayaan aaday suuqa si aan alaab soo iibsado. wallaahi bilaa cid laa dishay, cidna ilama degsano gurigayga. dad ii dhowdhowna ma jiraan. islaantaydii yareedna iga dhimatay. Isaga oo isla sheekaysanaya ayuu ka baxay gurigiisa oo ka calaacalaya cidlada haysata iyo inayna cidna la joogin gurigiisa. Guriga Warmooge iyo suuqa waxaa u dhaxaysay kayn uu ku noolaad qoriismaris aad u khatar ah oo dadka cuna. Maalintaasi qoriismarisku aad ayuu u gaajaysnaa. Isaga oo kaynta dhex ordaya oo doondoonaya cid uu cuno ayuu arkay odaygii. dabadeetna degdeg ayuu u soo laabtay. maantani u kaatay dishay wallaahi bilaahi, laakiin saaxiib odaygan yar baan maanta ku bahayaa ay ku taawanayo geedkan aan ugu dhuumanayaa jebigiisa baataan ismarin waayey. Miskiinkii Warmooge wadada ayuu iska soo xaragoonayaa isagoona waxba ogeyn. Ileen magaciisaba Warmooge ahaaye. dadku waxay yiraahdaan kayntan waa keen laga baqdo. malaha weynideedun bay moodayaan inay wax ku nool yihiin. waa meel faaruqan iyo waana maalin kasta mara. dadka maanta waxaan tusayaa inayna meeshani waxba ahayn baneeco. waxay moodayaan meel laga baqdo. Warmooge wuxuu iska dhex xaragoonayaa kaynta isaga oo isku qancinaya inayna kaynta waxba ku dhex noolayn, halka uu qoriismariskii geedka ku daba dhuumanayo oo uu sugayo waqtiga ugu munaasibsan. wallaahi kan maanta way ka soo dhamaatay, igu daawasaan u liqanayo gebigiisaba. Warmooge isaga oo iska xaragoonaya ayuu soo agmaray geedkii. dabadeetna gebigiisa ayaa la liqay. armaana baalku